السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا دبان شعبيga Soomaaliyeed meel kasta oo joogan xalay waxaan daawanayay niman ka cabaadaya madaxweynaha wadanka inuu saxiixayo marka madaxweynaha wadanka saxiixaya damba ka liftay inuu saxiixo maxaa yeelay Allah oo naxariistay Maxamed Sabar xujira wallahi bujiri dal waan ka tagay laakiin dadka ma tagin maxaa uu saas u leeyahay Maxamed Sabar wuxuu ogaa Soomaalidu inay saaraan rag dad muwaadiniin ah ay yihiin iyay wax diiranaysa xayawaan inay yihiin Soomaalidu ayuu ogaa maxaa yeelay Maxamed Sabar ha shakhsi baa Allah oo naxariistay wadankii uu ka tagay isagoo oo mataqaanay xabad dollar ka wadan 21 sano xukumay wadanka way ogtihiin ninka Afrikaanka ama ninka Carabta ah ee wadanka xukumaya 21 sano adduunka meel walba ku yeelan lahaanti isagoo laakiin wuxuu ahaa nin muwaadin ah waxaa la yiri wadankii waxa loo siixayaa niman European ah waxa loo siixayaa horta loo siixay meesha jooga Soomaaliyeed adiga u dhashay Soomaaliga ayaa mataqaanay ka cararaysa ama dulihado ama Europe ama Canada ama Mareykanka loo geeyay 100,000 bixinaysa marka wadan aad ka cararayso oo gubanaya oo 100,000 aad bixinaysid inaad ka cararto ama 10,000 ama 20,000 whatever aad haysatid maxaad ku diidi ragga inay ma gashaan qabojiyada dajiyaan marka saaxiib aro ma arko in loo diido dadka shayaha wadanka inay ma gashaan ama dajiyaan in loo diido ma arko haluu soo dhaweeyo maxaa yeelay annaka oo cararnay meesha joogay nabadgelyo iyo nolol raasanayna ninka nolosha u raashanaysa guriga ku imaado waxa ku diida ku wadiye ninkii nolosha iyo nabadgelyo u raasanaysa hadduu guriga ku yiraahdo guriga ku barwaaqeynaya waxa ku diidi warin waxaan leeyahay anigu arinta ma amsanin haddaan Yurub iyo Canada iyo Mareykanka heli karno ku soo dhaweey wadanka hana ma gashtaan annaka shaqaale oo noqono nolol aan ka helo annaki waxba noqonay waxba aan hayno waxba qabsanaynin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh